السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالي وإذن سلامي دمان ميل والبقى الدنيا ذك جوكتين إلهي إذن حفظ الله إذن بركة رمضان صوص على عمري عافمات الله نو جارسي دم بيجيني دم والدكين بقى الله عافو كوي أعماش هذا لا أقبلنا الله نقدر إرساقد إلهي واسع هنوقدر أولادنا إلهي باري هنوقدر أصحابتي إذا قالي waxaan rabaa qiso gabar ku dhacday inaa idin la wadaago gabadhan waxay dhahday 27 jir ah hal gabar ah iga weyn oo 28 jir ah marka waxay dhahday aabahay gaasi way abuya gaasi dhahday marra waa kulul yahay mana noo naxariistay dhahday ama ummi ma sha Allah xanuunad waaye dhahday hooyaday oo aad u naxariis badan marka waxay dhahday mar walba hooyaday markay familigeeda u tagto waxa la leeyahay gabdhaha gacawaanista ee oo guriga ku gabooba oo guumaysta noqdeen goormay la aroosaa لدرجة إيه هو يدي فاميلي جد حتى أي كقعدة هذا مركب وحيد هذا أنا جمر والبقى بهن مركب إيمانا يجورج وحيد هذا يعني أو جورج إيمانا وح سكوت ديار كريننا عاي بهدل يقيله مالك استو ديار جروبنا هذا مركب وحيد هذا أبيه يبقى يستوحوه هدين فربضنا نقوليه ماله ككينا يسي أو وحيلا يعني ملهن مر والبحورها متى أروسي سينجورمي جورسني سينو أفتك منكم حتى مهركين دينتا إسكا جودي لهاي marka waxay dhahday gabadhan aniga ila dhalatay manaara lagu magacaabo marka manaal waxay dhahday dadka buurbuuran waay oo mar walba tishtaki min samna oo isheeg way iska xanuunsan tahay lugta bidixda way xanuunay way buuran tahay markastana waxay dhibsatay kalaamka aabahay dhibsatay hadalka kulul oo dhahay qaasatan adiga murabraba biyaadub gorme aroose gorme idhaafe ee dhibsatay mar walba marka walaashay aniga niida u dhisaa adkar ilaahay aan dhahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu qoray ma gafaysid maxaa la dhahaa isheeg iskana dhaaf aabahay warkiisa iska dhaaf ilaahaaga tala saaro anaa micigaaga anaa garabkaaga ilaaha garabkaaga taagan marka mar walba waxay dhahday markii walaashay hadal xun aabahay oo dhahaa mar walba niyada u dhisaa waa la hadlaa maxaa la dhahaa isheeg saaxiibaan ka dhigtaa marka waxay dhahday waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ahaa waxaa dhacday tiri aabahay oo faraxsana imaaday markaasaa hooyaday waxay tiri kheer markaasoo dhahay اليوم الساعة 8 waxaa noo imaanayo caawa maanta 2 saac habeenkii caawada waxaa noo imaanayo nin oo manaal soo doonanayo jaahisi manaal caawada diyaar ka dhig nin arkaayo oo qaduubanayo markaas waxay dhahday yaa waay ninka hooyaday weydiinaysay tiri yaa waay ninka markaasoo wuxuu dhahay walad oo saaxiib deen waay wiilka oo ninka deenta igu la wiilkiisa waay markaas waxay dhahday okay marka ana waxaan dhahay tir ana sameynaayo qolka oo fadhiga oo nimanka ana hagaajinayo waxaan rabaa hay dhahday dariishada inaan furo oo aan wax ka fiiriyo dhahday ninka inaan dariishada ka arkaan rabaa hay dhahday oo daahan ku aadinaa marka waxay dhahday qolka fadhiga soo hagaajiye daaha ku aadiyay dhahday dariishada wax yar soo furay marka marana waa u labisay dhahday waxa u galiyay tir marka fustaan ku dhagana u galiyay dhahday tinta uu hagaajiyo wajiga wax u mariyay fustaan ku dhagana u galiyay ninkii waqtiga markii la gaaray oo ninkii imaaday oo qolka fadhiga ay galeen waxa u dhiibay tir cabitaan ilaa amarkiis waxay tir ninkii waa arki waay aniga markii gabadha ay qolka gashay waxaan galay dhahday dariishada gadaala istaagay dhahday aan ka fiirinayo ninkii waa arki waay dhahday waxay fadhiisteen asagii aabahay dariishada kuraasta ku aadan marka dariishada hadaa soo istaagtid qofkii kuraasta fadhiya ma la arkaayo dariishadii ku dhagan yahay marka waxay dhahday waxaan u jeedaa bas walaashay u jeedaa dhahday markii oo ay walaashay soo gashay way is arkayaan wiilkii iyo gabarta ma ogtahay adoogana wuu ku dhex jiraa marka aabahay agtiisa fariisatay ninkii marka codkiisa maqloo yahay dhahday wuxuu dhahaa manaal kam amrag ogfay meeqa sana jirtaa istaag duuri wareegso miisaankaaga meeqa waaye aada u buurantaa adi maxaa isu qaban weyse marka waxay dhahday minki tiri qajal walaashay wajiga dhan waa ka gaduutay dhahday aniga ciil dhuunta ay kala go'an meeshii ma ka hadli kariyay dhahday ma soo gali kari waxaan sameeyo aan ka suwaay dhahday ilaahay amarkiis aabahay warka wuxuu dhahay markuu ninki saas inuu wax sameynayo oo dhahayo miisaankaaga meeqa waaye meeqa sana jirtaa maxaa isku caateen weyse markuu saas arkay wuxuu dhahay bax gudaha gal walaashay manaal waa soo buriyay dhahday idkhul jawaa la soo dhahay خلاص وحير كبعدي نينكي يا بحي وحا صوبحي دهدي ابهي ومعصبه ساس وكركراي
lees dubadaan cambuurkan ku dhagan aa ugu galiseen murabrabada oo saan oo kan hadda waa kaasaa wiilkii wuxuu dhahay ma rabi gabadhaada ima qancinin woo deeriye balaa ilaa idinku ride walba meeshaana ii fadhideen wax idin guursanaya ma lahane haddana adigaan u sabab anoo igu qaylinaya dhahda adaa u sabab maxaa ugu galisa cambuurkan calaa kulli xaal waxaan dhahay tiri abooye ninka soo u dhaqmaayo qalad waayo intee naga arkaysa adi ani daaqadaa idinka arkaayo maxay tahay aabow gabadhaada sida la yeelay aadan ka hadlaynin istaag duuri meeqa sanaa jirtaa miisaankaaga meeqa waayo aaba saas qalad waa inaad ka hadashid waay gabadhaan adaa dhashay haddaan la guursan calafkeeda oo imaanin qasab ma aha maxaa laha sheeg ninka loogu daraa mase ninkaa lasoo qasbaa oo lasoo tuugaa calaa kulli xaal waxaan dhihi tiri abooy qalad waay waxaas markaasoo waxay dhihi tiri calaa kulli xaal waxay dhahay taaniyan aan shuufaahe midda kale arkaahe isdiyaari isbuuca dambe aniga aha adiga adaan u sabab oo dhahay walaashaana ninka adaa dhaafise saas maxaa ugu labiste aniga waxay tiri dhulkaa isku garaacay ciil qayla waxaan dhihi tiri lagama yaaba ninkaas inaan is aragna ama aan guursado nin walaashay saas yeelay wallaahi ma rabi markaas waxay dhahay aday kuu taala kuu dhimaca nafsag isdiyaari adaa lagugu daraa ninkeen haddaa cajabisid ninka waa lagugu daraa waxaa dhahay mawaalan tahay aniga deenaa laygu leeyahay aabihiisa deen igu le waxaa laga yaabaa deenta in la ii dhaafo saaxiib deen wiilkiisa waaye siaaba lagu diidi karaaba gabartaasna adaa dhaafaysa ninka oo saas ugu soo labistay calaa kulli xaal waxay dhahday waa la joogay ani waa diiday wuxuu dhahay tiri aniga horta maba ila hadlinba markii dambe ani saas aan u qayqaylinayo shibowba iga dhahay tiri shuuf bintagle la dhahay tiri hooyaday waxay dhahday maalin kasta waxay dhahday isbuuc inta laga gaarayo habeen walba maalin kasta hooyoy waa ku tuugaa hooyoy waa ku baryaa aabbaha warkiisa ha jabinin ninka deenow nagu leeyahay allah khaliik haddii walaasha cajimi weyse calafkeedu noqon waayo waxaa laga yaabaa adig inaad qancisid calaashaan abuug waa ku baryaa hooyo say ii barbariyeysay dhahda hooyaday waa iska ogolaada inuu i arko maalinkii ballanta waxaan sameeyey dhahda horta maalintii ballanta markii la gaaray aan waxaan sameeyey dhahda dharka ugu foosh xun waxay tiri aan soo gashtay wejigana wala kareem xataa wax aan mariyey balbar xataa iskuma taabanay dhahda tinta inaan falax kasoo dhigay darxad yarna aan soo qaatay tinta gees yar aan kasoo baneeyey foolxumada adduunka anoo maxaa lahaa imaaday dhahday maalinkii ballanta markii la gaaray habeenkii oo 2 saac habeenkii adooga iyo ninkii ay isla imaadeen oo qolka fadhiga ay galeen oo anigana yani sidii walaashay oo cabitaanka ay u geynayso kaleeto anina inaan cabitaan geeyo waay ma ogtahay shaa ama qaxwo ama casiir waxle inaan geeyo waxay dhahday hooyaday casiir ii dhiibta meeshaan galay horta waxay dhahday isbuuci lasoo dhaafo dhan walaashay xishoo dartiis wejigayga xataa ma fiirinayn saanay wada aheed ay dhahday maalin kasta saan waay markaasaan waxaan dhahay tiri irfac raasag wax laga xishoodo ma sameynaa dhahay tiri ninka adigaas jawharada oo quruxdaas leh ninkii ku diiday asaa qasraan weligaana madaxaaga hoosa dhigin walaa horta ani waa ku raacsanahay gabdhow anaga horta dhaqankaas ma lihiin yani aniga ra'yigayga markaan ka hadla anaga dhaqankaas ma lihiin soomaalida waxaa waaye naagta nin haddii lagu daraayane dabeecaddeena iyo dhaqankeena anoo gaarka iskugu daraynaa hadday ayaga isdoortaan isjeclaadaan markay ayaga isfahmaana la isku daraa ama isguursanayaan mahano يعني حير كان أو ما بتجرب نظرة شرعية ونين كناكت إنه سوء أركواي شاه إنه وكان تواي إذا لبسن إيه وحاس ما بنقانا بقى الحمد لله رب العالمين لكن إيفن هدايك وقول على قبري أذيقا ولقا ماذا حاجة هوسا آدين ولقاني نين بني آدن ساسا وليهن ارفع راسك كرتي ناقني ما يالي إلها وماذا حاجة كركدقاي ليش محلا ماذا حاجة هوس وآديني مرك على كل حال حماسة إقاضية معلش أنا والله ما جعلي قبر لبهدلها والله ما جعلي مركاسي وحيد هذا أنا مالك وحيد هذا أو لإزديارنا دك فولحن عصوك أشت أو نيك عبتانك أو جيناي أو يسوفيري نينكا وحيد هذا أنا هبينك ما أركن نينكا ولا شيء نهايو استاك وريغو ميسان كاغا ميقواي نينكا نهايو نين جنتلمان وقروح بدنو كالا أرغو كالي حرن إنو يها أمالينا يدهدي ومثل waxay tiri dhulka ku dhagan cunug yariis inuu fadhiyo oo malaysaa tiri kursiga aabahay u fadhiyo aabahay nin dheer oo weyn oo laba lafood waay waxay tiri cunug yar oo aabahay ag fadhiyo loogu egyahay marka waxay raad maaskiya u xiran kamaamay dhahan carabta kamaamiya u xiran ay dhahday wajigiis oo waaye kariisko kamaamaha wada qaatay labada indhooda meel dheer ka arkay tiri wajiga dhanba maaskiya daboole niyada waxa iska dhahay tiri
waxaana walaashay bahdilaayo dhahay miisaankaaga meeqa waaye wareegso oo ka xishood siinayo hoostaa ka dhaway niitaa ka dhawayaa tiri allah ina calag wallahi adiga ii kaa dhiiba leh ama aabahay le dhexdeena ka bixiyo marka waxay dhahday aniga anoo oo madaxayga kor ah oo is adkeynay aan galay dhahday cabitaanka markaan dhiga aabahay ag fadhiistaa waxaan ku bilaabay tiri meeqa sana jirtaa ha oo idhahay tiri intuu saan ii soo fiiriyey markaasaan waxaan dhahay tiri shiilka maama wejigaaga hala arkay maa qaadid maaska markaasuu yidhi laa fii corona shaadal bintii oo dhahay su-aal badanaa aabahay intuu u jeesto wuxuu dhahay shi su-aal maxaa isfii mafruud ani inaan wax weydiiyi waayo maahana inay iyada su-aal igu boobta ma ahan markaasoo wuxuu dhahay yaa bint istaxi ka xishoo ninka ceeb waaye asaga inuu hadla waayo adi inaa hadashid ma ahane khaliid kalamaan dhahay tiri intaasaa u fiiriyey markaasoo wuxuu dhahay laa khalaas muwaafaqa ahay biduun su-aal wala shay wax aan weydiinayo male tanaana rabaa aniga waxay tiri ciilka naagti dharki uraysa gashatay dharki faashi xumaay gashatay oo ameeka ag ismarinin oo iyadoo bahdila ninka u gashayba aniga ma ahan waxay dhahda anoo ciil dhuunta i kala go-an tahay aabahay dhaha yalla idkhuli juwa khalaas rijaal waafaq waa ogolaada khalaas qadubadana bacda isbuuc waa insha allah waxay tiri dhaqadkii meesha fadhiya asaga leeba go-aan ka qaadanayo qadubadana bacda isbuuc waa faraandi galiska khalaas arooska iyana waa ka tashanaynaa meherkeeda wuxuu yahay ii sheeg iyadaana ku qanacsanaa waxay dhahday aniga waxaa ka xishoonaa walaashay ninkii saas u bahdilay oo maxaa dhahaa dhahay warwareegsa istaagay fadhiisa dhahay oo aniga haddana i rabo walaashay wejigaa kula hortagaya maxay ta ceebta hooyaday aabahay wax ma u arkoyn hooyaday maskiinta waxay dhahday aabahay dalabaadkiisa lay fulinoysaa maana anaga waxaan ku qanacsanay weligeed ku qanacsaneed laakiin maxay sameynay aabahay ma ka hor imaan karto marka waxay dhahday horta ilaa ay hadda aniga ninkii waxay dhahday ma guursanin qatiibkina waa dhiman yahay laakiin wuxuuba dhahay naagtaana ku qanacsanahay gabartaana ku qanacsanahay anigana waxay dhahday walaashay anigiyaa ka xishoonoy tiri inaan wejigeeda fiiriyo iyadana ana iga xishoonaho waxay isleedahay tiri maxaa dhahaa isheeg ninkii adiga ku diida walaashaa qancise walaashaa akiid way kaa qurux badan tahay way kaa karti badan tahay waxaasay niyadda iska gelisa marka waxay dhahday waxaan sameeyey ma aqaaniyaa jamaaca qisadaasa ay ku dhacday ilaa ay hadda waxay dhahday isbuucii waxyaraa ka dhimanay dhahday oo qadiibada ninkana asaasan maba i qancin inay tiri laakiin aabahay dalabaadkiisa leen fulina teeda kaleetana dadkii oo dhan waxay leeyihiin gabdhahan cawaaniska ee gabdhahan guumeysta marka waxaan sameeyey ma aqaana talaa igu caddaatay dhahday marka walaalahayga qaaliga anigana qisadaasaa jeclaysta inaa idinla wadaago like-ta ha iga iloobina subscribe-ka sheerta aada u mahadsantihiin